af weyn oo qoraxda ku furmay oo xataa la yaab u muuqda. Dalool weyn oo afka u eg oo qoraxda ku yaal oo ballaciisu dhan yahay 5 Jupiter ayaa neefta qoraxda kulul ku qarxinaya jihada guud ee dhulka. Maaha dalool dhab ah oo ku yaal qoraxda, laakiin waxaa loo yaqaan godka koronaha, gobolka uu ka furmo goobta magnetic qoraxda, taas oo u oggolaanaysa dabaysha qaybaha cadceedda ee si joogto ah uga soo qulqulaya qoraxdeena si ay u baxsadaan si aad u diyaar ah, oo u soo diraysa qulqulka walxaha qarxa iyada oo loo marayo nidaamka qoraxda. Haddii aad u fiirsato qoraxda ee hirarka indhaha, ma ku talinayno inaad tan samayso iyada oo aan qalab gaar ah lahayn, ma ogaan doontid wax, laakiin sababtoo ah gobolladani way ka qabow yihiin oo ka cufan yar yihiin balasmaha ku hareeraysan. Haddii aad ku eegto iftiinka ultraviolet, waxay u muuqdaan kuwo waaweyn oo madhan oo mugdi ah. Qoraxda sida ay u muuqatay Juun 4 ee 3 mawjadaha ultraviolet ee 171, 193 iyo 211 ngstroms. Nasasto. Wakhtigan xaadirka ah, qaabaynta godadka halbowlaha ee wejiga qoraxdu waa si fiican, sidaas oo kale, weji qaylo leh oo ballaaran, gash afka u eg oo ku yaal irifka koonfureed, iyo 2 indhood oo u eg waqooyiga. Dabcan, waxay aad uga cajaa'ibsan yihiin indhaha caadiga ah. Mid kasta oo ka mid ah dhibcaha waqooyigu wuxuu ku wareegsan yahay cabbirka Jupiter oo keliya. 3 gobolba waxay qarxinayaan nidaamka qoraxda oo leh qaybo iyo balasma. Tani maahan wax laga walwalo, inkasta oo qoraxdu ay u muuqato inay dareenkeeda ka leedahay arrinta. Daloolada koronada waa caadi. Dabaysha xooga badan ee ay eryaan waxay dhalin kartaa duufaanno juqraafiyeed marka qaybuhu ay isku dhacaan magnetosphere dhulka, laakiin waxay u muuqdaan inay yihiin dhinaca khafiifka ah, meelna uma dhowa heerka duufaanka ee aan kala kulanno qaraxa hore ee buuxa ee kororka tirada badan. Taasi waa qarxis xoog leh, oo qaybo ay ku shaqeeyaan dib u xidhka birlabeedka ee gobollada ay goobta magnetic qoraxdu ka awood badan tahay hareeraheeda. Laakiin godka wadnaha ee qoraxda ayaa laga yaabaa inuusan xitaa soo saarin duufaan yar oo juqraafiga ah markan. Xoojinta dabaysha degdega ah ee xigta ee suurtogalka ah waxay ka imanaysaa daloolka korontada ee saxanka koonfureed, xafiiska Met ee Ingiriiska ayaa ku taliya. Si kastaba ha ahaatee, tani waa kalsooni hoose waxayna u badan tahay inay noqoto kaliya isdhexgalka daciifka ah sababtoo ah meesha koonfureed laga yaabo inay keento wakhti dheeraad ah oo dabaylo sare leh. Midabka dhulku wuxuu la kulmaa madowga meel qoto dheer. Xiddigaha ka sareeya auroras cagaaran iyo guduudan, oo loo arko inay yihiin dhibco go'an oo ay ugu wacan tahay wadista dhinaceeda orbital ee guriga lagu sameeyey. Ha ka welwelin, inkastoo qoraxdu hadda waxay ku socotaa haywire leh firfircooni iyo firfircooni ka saarista qulqulka, meeraheena waxa kaliya oo ruxay duufaan xoog leh oo 4 geomagnetic ah taasoo aragtay auroras borealis iyo australis oo ku maydhaya samadayada midabyo badan oo latitudes ah oo dhif ah inay helaan khibrada. Maadaama qoraxdu ay hadda ka soo baxayso wejiga ugu firfircoon ee wareega firfircoon ee gaarka ah, waxaan filaynaa yaabab badan. Waxaan rajaynaynaa in laga yaabo inay isku dayi karto inay u ekaato walwal yar marka xigta.